runtii maanta daafurka barnaamijkan daddigista halkan loo joogo kelmadda rasmiga ah wasiirka iska leh laakiin aniga shaatigii wasaaradda arrimaha dibadda xaggan iska dhigaya markaan halkan joogo sababtuna waxay tahay barnaamijkaanan wax ka ogaa meel fiican uu soo maray oo la soo gardaadiyey haddana aan arkayo inuu meel fiican gaaray qayb baan ku leenahay annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda arrimaha dibadda sida xeerka golaha shacabka yaalla ku qoran waana qaybta dadka dibadda diiwaangelintooda gaar ahaan carruurta yarka ah ee dhasha waana xoolaha iyo waa sumadan yihiin bulshooyinkuna waa sumadan yihiin marka bulshadeennu bulsho leh dal iyo base ay ka duulaan weeye marka 3 milyan oo qof oo naga maqan ama 4 milyan ba lagu sheego mararka qaarkood waxay u baahan yihiin in xerada dalka ay ku dhex jiraan oo xuquuqda dalka ay wax ku leeyihiin dalka ay ka tirsan yihiin marka in loogu geeyo serviceka oo safaaradaheena dibaddu ay shaqadaas qabtaan ayaa qayb ka ahayd qaybtaas aan ka soo galaynaa marka waa qayb ballaaran oo dowlad goboleedyadaas leh waa ka ballaaran yihiin dowlad goboleed kasta saasaan muhiimad u leenahay wasaaradda arrimaha dibadda wasiir marka daddigista la joogo dowlad goboleedyada iyo degmooyinka iyo kulli iyo la fiirinayo mujtamacaasa mujtamac ballaaran annagoo ku haysan dadkooda iyo shaqada ay qabanayaan barnaamijkan runtii ilaahay wuxuu nagu ibtileeyey anigaa leh shaqadan wax la yiraahdo oo shaqadii collective-ka ahayd ee dowladda ka dhacay dowladdu waa center isku xiran qofba inbuu ka qabanaya inbuu ka leeyahay waa ku qabanaya marka dambena natiijo fiican baa soo baxaysa barnaamijkan marka intaan ka fahamsanahay waxaa loo sameeyey wasaaradda caafimaadku inay qayb ku yeelato wasaaradda arrimaha awqaafta iyo garsoorka iyo inay ku yeeshaan qayb degmooyinka baseka ugu ballaaran 90% shaqada degmooyinka ah inay yeeshaan wasaaradda coordination keliya ayay leedahay shaqo qof ay qabsanaysaa ma jirto coordination bay leedahay iyo dalkii in la ogaado war maxaa dalkan dadkiisu see weeye see loo dhashaa see loo dhintaa maxaa yaala see loo guursadaa see maaragtay la isku furaa inkastoo qodbasirada in meel looga yeelo aan rajaynayo oo guurkii labada dhinac kii kale iyo kii kale labadii waa noqdeen in halkaas isagana barnaamijkaas wax laga siiyo guurkii maalin dhaweyto mayd baa maaragtay cashuur laga qaadayaaba suuqa socoto waxaas faham darro wey dadku dee waa xisaabsan adduunka waa aragtay saas isku bedelay sida lacagtoo kale ayuu isku bedelayaa dhalashadii intaasaa dhashay lambarku meel ma fadhiisanayo saacad uu nambarku meel fadhiya ma jirto shaqada hay-adda muxuu ahaa immigrationka iyo shaqada niira wiilka halkan ka hadlayay immigrationka wuxuu yidhi base annagaa base ma tiri adiga base waxaa ah tan halkaana base waayo qofku markuu dhalanayaa base kusoo bilowda konton jir ah basaboor siisa base ma noqonaya halkaanu ka bilaabanayaa konton jir warqad dhalasho meelo kale wax looga soo niira ay diiwaan gelisan base maahan isaga waa halkaana base warqadda dhalashadu qaadanayaa niiruu geysanayaa kaarkaa la siinaya labadaas soo wata adiga lagu imaanaya laakiin base waxaad ku noqotay mar baad ahayd baad soo muddaad soo ahayd adigu keligaa dadka diiwaangeli jirtay waa la isugu yimid hadda marka inaad ogolaataan waxa soo kordhayo dowladnimada ah ayaan rajaynaynaa maalin dhaweyta wiilka gobolka banaadir oo hadlayay barnaamijkaana weeye barnaamijkiisi kan waaye maanta halkan inay yimaadaan oo ka hadlaan ayaa fiicnayd gobolku ayna joogaan halkan ayaa baysa barnaamijkan buu qaadanayaa xafiisyadu dhiganayaa dadku ku diiwaangelinayaa qoysasku ku diiwaangelinaya uu sheegay dadka dhintuu ku diiwaangelinaya wax oo dhan ha diiwaangeliyaa soo laakiin waa in meel la isugu yimaadaayo base ay lahaada laakiin computer yar baan meel dhiganayaa keligee wax diiwaan gashanaya degmada afgooyana keligeed bay wax diiwaan gashanaysa degmada balcadna keligeed bay wax diiwaan gashanaysa qardha keligeed bay wax diiwaan gashanaysa cadaada keligeed kana soo afjaray waxaas runtii faham fiican baa laga haystaa intaas leeyahay muddo dheerna waa laga soo shaqaynayay
cabdiqani iyo tiimka runtii halkan wasaaradda jooga marka waa halkan runtii maantay wasiirow munaasabaduna way ballaarantaa laakiin dowladdeena u baahan wacyigelin ku saabsan arrintan officerskeena dadka waaweyn oo mas'uuliyadda haya ka hor odayaasha dhaqanka iyo civil society intaysan gaarin innaga u baahan wasiiradeena u baahan waa shaqadan waxay runtii soo gabagabaynaysaa fawdadii wax lagu diiwaangelin jiray xagee lagu arkay qof sanad walba dhalanaya markii cimrada u socotay warqadda dhalashaa soo qaadanaysa warqadda dhalasho miyaa dhacda inaa haysato geysatay ahayd midda labaad meel kale aad u safraysaa mid kale lagu leeyahay soo qaado $20 iyo $30 baa haddana saf u galaysaa warqadda dhalasho hal mar baa la qaataa systemkaanay kugu jiraysaa meesha rabtaa lagaaga daabacaya nambarkaada sheeganaysa hadday kaa gabowdo waxay soo gabagabaynaysaa wixii isdul saarnaa muwaadinkana dhibaatada ayay ka qaadaysaa marka runtii maantay waa bogaadinaynaa waa wasiirka hadalka u hambaynayaa waa bogaadinaynaa shaqadan waxay u baahan tahay dalka Soomaaliya u baahan dal ahaan ayuu naga dhigay institution ahaan waa loo fikri karaa gobol ahaan waa loo fikri karaa dowlad goboleed waa loo fikri karaa laakiin kani wuxuu ka dhigayaa dalka oo dhan dadkiisu inay diiwaan gashaan dadka la diiwaan gelinayo dadka waaweyn ma way yihiin dadka waaweyn waqti baa loo jira sharciga ku jiranta laakiin ilmaha yarkaa dhashay immigration ilma yar oo dhashayna ma diiwaan geliyo niirana ma diiwaan geliso gobolka banaadirna waxyaalaha maalgii dhortay dhaay waa diiwaan gelinayna ilmaha yarkaa kuma jiraan dhalasho halkaasayna ka soo bilaabataa in warqadda iskuulka uu geysto cunug markuu isdiiwaan geliyo halkaana ka soo bilaabanaysa laakiin dadka waaweyn sharciga waqti baa loogu jira 10 sano aan u malaynayaa inuu ahaa haddaanan ilowsanayn 10 sano in qof kastoo weyni 15 sano ma qabo wuxuu ahaa 5 sano ama 10 sano mid buu qof kastoo weyn 10 sano gudaysa hal mar inuu isdiiwaan geliyo only one time dhalashadiisa wixiisa kulli uu sheeganayaa halkaa mar waa bas waay warqadda hadday ka lunto ama ka duugoodo unbaa mar labaad loo daabacaya intuu nambarkiisa iska sheego waxaana looga daabaci karaa meel kasta qof kastuu yiraahdo ii daabac ayaa loo daabacay waxaan lacagta laga raadinayo oo dadka lagu dhibaayana runtii in la soo afjaranto weeye oo qiimo yar oo amaba lacag la'aanba basically lacag la'aan baa ayay dhiirigelinayeen nimankii tababarka bixinayay oo caawinayay barnaamijkan in lacag la'aan looga dhigo ay ilmo yar oo hadda dhashay waxa lama dhihi karo hooyadii lacag bix lama dhihi karo marka inta badan wax bilaash oo kala oo aan business iyo lacag laga raadinayno shirkad hebel baa la siiyay la dhahayno systemkana runtii xoog badan baa lagu baxshay marka waa bogaadinaynaa annaga ka wasaarad ahaan arrimaha dibadda si fully ah wixii practical ah oo loo bedelayo diyaar baan u nahay anytime in wasaaradda dadkeeda qaabilsan arrintaas inoo yimaadaan oo aan sidii looga safaaradaheena dibadda ay servicekan dad dhigista u geyn lahaayeen meeshaas loogana qaban lahaa sida uu yahayna loogu qabanayo iyo sida ay tilmaamaan oo tababarada ku bixiyaan ayadoo wax shuruuda lagu xirayn ayadoo dhandhahayn maaragtay safaaradihii warqadihii yaryaraay oo lacagaha xoogaaga yarka laga helayay baa nusqaamaysa ayadoo la dhahayn waxaan ogolnahay inaan bilowno oo bilowga aan qayb ka noqonno waana mahadsantihiin